Subscribe saar halkan si aad u hesho muuqaal walba oo aan halkan soo gelino. Mahadsanid. waan salaam asxaabay magacaygu waa Samiiro waxaan ahay gabar daayir oo jirta 19 sano. Asxaabay maanta waxaan idiin wadaa sheeko aad u argagax badan oo gabi ahaanba noloshayda bedeshay. Diyaar ma u tihiin inaad dhageysataan oo aad daawataan sheekadaas sidoo kalena aad dhamaysataan? Xagaag aynu bilowno sheekada. Waxaan deganaa guri degan oo ku yaala bartamaha magaalada. Ma lahayn wax walaalo ah anigu. Waxaan ahay gabadha kaliya ee waalidkeed dhaleen, balse wax walba waxay bilaamadeen maalmaha ka mid ah anigoo jooga qolkayga oo jiifa sariirteeda oo sida caadada ii ahayd fiirsanaya taleefankayga ayaa waxaan arkay video aad iga yaabiyay. Dhammaan dadka Instagram-ka ku jiray oo dhan waxay ka hadlayeen hal shay oo ahaa inuu soo baxay bombal ay ruuxani u dhex jirto. Qaar ka mid ah dadku waxay yiraahdeen wax ka jira male oo waa been cad. Qaar kalena waxay ku adkaysteen in bombalahan uu yahay run. Waxa laga sheegayana ay yihiin xaqiiqo jirta. Waxayna ku sababayeen in qofkii iibsada bombalahan uu la kulmo waxyaabo yaab leh. Aniguna waxaan bilaabay inaan xogag badan ka baaro bombalahan. Waqti dheer oo xogtiisa aan baarayay, waxaan go'aansaday inaan soo iibsado bombalahan oo aan xaqiijiyo waxyaabaha laga sheegayo inay run yihiin iyo inay been yihiin. Kadibna fiidkii markii la gaaray oo uu aabbahay yimaaday, ayaan u tagay aabbahay oo fadhiya qolkiisa oo akhrinaya wargeysyada wararka. Aabe waxaan ku weydiisan karaa? Dabcan haa, gabadheedii maxay weydiisanaysaa? Aabe waxa jira bombala cusub oo hadda soo baxay. Qof walba oo Instagram-ka isticmaalana wuu ka hadlayaa. Aabe waxaan rabaa inaan soo iibsado bombalahaas oo aad lacag siiso. Adigoo 8 jir ah oo feeru intaas ku leeg yihiin, miyaad rabtaa inaad sida carruurtii inaan bombala ku keeno? Miyaadan xishoonayn gabadheedii? Aabe waan ogahay inaan ahay qof weyn, balse bombalahan waa trendy oo waa caan, qof walbana wuu iibsanaya. Aniguna waan jeclaystay inaan isku dayo inaan soo iibsado. Haye aad soo iibsatay maxuumide? Imse ayaa la siiyaa bombalaha? Aabe maaha mid qaali ah, waxaa la siiyaa $20. Gabadheedii miyaad waalan tahay? $20 miyaa bombala xuna oo aan faa'iido lahayn ka bixinaya? Maan dadka masaakiinta ah ku sadaqaysto. Fadlan aabe ii gad. Haddii aad bombalahaas ii gaddo, waxaan kuu ballan qaadayaa inaan wax dambe ku weydiisan doonin bishan oo dhan. Haye gabadheedii, haddii aad ku adkaysatay waan ku gadayaa. Kadibna aabahay wuxuu i siiyay lacagtii aan bombalaha ku soo gadan lahaa. Aniguna waan ka qaatay lacagtii. Kadibna waxaan u soo orday qolkayga si aan degdeg ugu dalbado bombalaha. Habeenkaas hurdo way iga imaan weyday. Waxaan isku rogrogayay kolba dhinaca sariirta, anigoo ka fikiraya sida uu bombaluhu u ekaan doono marka uu yimaado. Waxaan si daran u rabay inaan helo midabka guduudka ah, midabkaas oo astaan u ah jacaylka iyo farxadda. Aniguna waxaan u fikirayay si farxad ay ku dheehan tahay, laakiin ma aanan ogeyn in midabka guduudka ahi uu noqon doono wixii iigu horreeyay iyo cabsi geliya. Ugu dambeyn indhaha ayaan isku qabtay, waxaana galay hurdo gaaban. Laakiin hurdadaas gaaban gudaheed waxaan ku riyooday riyo la yaab leh oo ahayd anigoo dhex taagan gudaha sanduuq alwaax ka samaysan oo ciriiri ah. Dhammaan darbiyadu waxay ahaayeen casaan madow leh, waxay u ekaayeen sidii kuwa dhiig baxaya. Aniguna waxaan maqlayay qosol hoose oo ka imaanaya gudaha sanduuqa. Aniguna ma aanan awoodin inaan dib u jeesto. Kadibna qof aan garanayn ayaa ii soo dhawaaday. Dhegtan waxa iigu sheegay isagoo yiraahday, maxaad u dalbatay bombalaha guduudka ah? Haddii lagu keeno bombalahaas, ogow inay dhibaato ka soo gaari doonto. Kadibna waxaan ka toosay hurdada anigoo argagaxsan oo si dhib leh u neefsanaya. Mana aanan fahmin waxaan arkay. Kadibna si lama filaan ah albaabka guriga ayaa la soo gargaraacay. Kadibna waxaan aaday dhankii albaabka si aan u soo furo. Markii aan furay albaabka, waxaan arkay wiil horteeda taagan oo adeeg delivery ah wada. Quraxim adiga Samiiro? Haa, waa aniga. Dalabkayga wuu yimid. Waxaan rajeynayaa inaad ku raaxaysato. Aad iyo aad ayaad mahadsan tahay maadaama dalabka aad si dhaqso leh igu soo gaarsiisay. Mahadsanid quraxay, balse xasuuso waxyaabaha aad dalbatay ani ahaan ilama wanaagsana. Maxaa tidhi? Kadibna ninkii ayaa jeestay isagoo si degan u baxay isagoo aan dib u soo eegin. Kadibna waxaan galay guriga. Waxaan kartoonkii saaray miiska, dabadeedna daboolkii ayaan ka furay. Waxaana ka soo saaray bombale, taasoo ahayd midii aan dalbaday oo aan jeclaa. Midabka casaanka ah ee aan rabay runtii wuu saarnaa.